soo ahayd ninka adiga ku furay carruurta u dhashay hadduu walaasha guursado maxaa dareemi lahayd aan idin soo weydiiyay ayaa jirta marka qisadii iyo sheekadii ka dambeysay ayaan doonayaa inaan wax idinka sheego waxay la soo xidhiidhay gabadh Soomaaliyeed oo joogta iminka qurbayaashan waxay tiri kiinay nin baan isqabi jirnay markii hore carruur baan u dhalay 5 carruur ah ayay u dhashay rag iyo dumar bay isugu jira marka way kala tageen intii loo qoray bay kala qaadeen way kala tageen reerkii iyadii waxay tii waxaan joogay wadamada Afrika ayaan joogay meel kamid ah isagii markaa uu soo dhoofay wuxuu soo galay wadamadan shisheeyaha ayuu soo galay oo uu yimid markuu yimid walaashayna waxay markaa joogtay qurbayaasha iyaduna especially halku joogay ayay joogtay laakiin iyada ka sii horeysay marka waxay tiri adigu waa la wada hadlay waa la sheekaystay walaashay waxay guursatay ninka aniga furay ninkii aniga furay shock bay arrintaasi aniga igu noqotay ninkii aniga furay ayay walaashay guursatay aniga iyo walaashay hadda waxaanu isku nahay walaashay ilaa maalintii aan maqlay inay ninkii guursatay oo aan markii hore waxay tii aan xaqiiqsan waayay in sheekadan la sheegayay arrintan la sheegayay ay run tahay yaa waxay tii maalin maalmaha kamid ah yaa ilaahay wuxuu inaba keenay wadankii ay joogeen anoo dadkii rumaysan waayay wixii la sheegayay aniga carruurtaydiba nabad baan ku soo galay bay tiri wadankii ay joogeen waxaan soo xaqiijiyay bay tiri in ay reerku isqabaan walaashayna ninkii ay xamilo u tahay adeertooda markaan soo xaqiijiyay waxay tiri niyadaydu way xumaatay waxay igu dhacay xanuun meel iga yimi aan garanayn markii aan indhaha ka qaaday walaashay iyo ninkii aniga ifray carruurtayda dhalay oo isqaba oo hadan xamilo u tahay waxay tiri in haaragtaadi igu dhaco ama uu maaragtay aan si kale aan noqday bay tiri oo aan iskaran waaysan noqday muddo 3 bilood ayaan xanuunsanayay bay dhahday muddadaas 3 bilood aan xanuunsanayay dhakhtarka marna waa la igu sii celinayay marna waa la iga soo qaadayay waxba ma kala ogeyn marka waxay tii walaashay dhakhtarkii markaan ka soo baxay ee aan ladnaaday ee quraan fara badan lay saaray ee aan ladnaaday yaa waxay tii maalin maalmaha kamid ah aan walaashay telefoon u diray waxay tii telefoon markaan u diray bay tii codkayga oo aad maqasho horta maanta kuugu dambaysa soo ahayd ninka adiga ku furay carruurta u dhashay hadduu walaasha guursado maxaa dareemi lahayd aan idin soo weydiiyay ayaa jirta marka qisadii iyo sheekadii ka dambeysay ayaan doonayaa inaan wax idinka sheego waxay la soo xidhiidhay gabadh Soomaaliyeed oo joogta iminka qurbayaashan waxay tiri kiinay nin baan isqabi jirnay markii hore carruur baan u dhalay 5 carruur ah ayay u dhashay rag iyo dumar bay marka waxay tiri adigu waa la wada hadlay waa la sheekaystay walaashay waxay guursatay ninka aniga furay ninkii aniga furay shock bay arrintaasi aniga igu noqotay ninkii aniga furay ayay walaashay guursatay aniga iyo walaashay hadda waxaanu isku nahay walaashay ilaa maalintii aan maqlay inay ninkii guursatay oo aan markii hore waxay tii aan xaqiiqsan waayay in sheekadan la sheegayay arrintan la sheegayay ay run tahay yaa waxay tii maalin maalmaha kamid ah yaa ilaahay wuxuu inaba keenay wadankii ay joogeen anoo dadkii rumaysan waayay wixii la sheegayay aniga carruurtaydiba nabad baan ku soo galay bay tiri wadankii ay joogeen waxaan soo xaqiijiyay bay tiri in ay reerku isqabaan walaashayna ninkii ay xamilo u tahay adeertooda markaan soo xaqiijiyay waxay tiri niyadaydu way xumaatay waxay igu dhacay xanuun meel iga yimi aan garanayn markii aan indhaha ka qaaday walaashay iyo ninkii aniga ifray carruurtayda dhalay oo isqaba oo hadan xamilo u tahay waxay tiri in haaragtaadi igu dhaco ama uu maaragtay aan si kale aan noqday bay tiri oo isugu jira marka way kala tageen intii loo qoray bay kala qaadeen way kala tageen reerkii iyadii waxay tii waxaan joogay wadamada Afrika ayaan joogay meel kamid ah isagii markaa uu soo dhoofay wuxuu soo galay wadamadan shisheeyaha ayuu soo galay oo uu yimid markuu yimid
ولا شينا waxay markaa joogtay qurbayaasha iyaduna especially halku joogay ayay joogtay laakiin iyada ka sii horeysay